kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageystayaal ku soo dhawaada fariin iyo talooyin ku socda madaxweynaha dowladda Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Maadey khilaafka dhaxyaala iyo gacanta saddexaad ee ku dhex jirta maxaa dhaxyaala xukuumadda dowladda Soomaalida iyo ONLF maxay isku hayaan madaxweyne Mustafa iyo gudoomiyaha Maadey suuragal ma tahay in la dhaxgalo khilaafka dhaxyaalana la soo afjaro yaa dhaxgali kara oo ka mid arin kara arintaasi haddaba qoraalkani waxa uu leeyahay waxaan isku dayay in aan ka jawaabo su'aalahan waxaan idin la wadaagay xogo badan oo muhiim ah oo aan goobjoog u ahaa iyo talooyin laga yaabo inay waxtar u noqdaan ciddii ku hawlan ama ku hamiyeysa in ay xal u hesho khilaafka dhaxyaala dowladda Soomaalida iyo ONLF su'aasha ugu horeysa waxa ay tahay maxaa dhaxyaala xukuumadda dowladda Soomaalida iyo ururka ONLF arintan way ka guda weyn tahay mid u dhaxaysa laba dhinac oo kala ah xukuumadda dowladda Soomaalida iyo ONLF ama Mustafa iyo Maadey dhinac saddexaad ayaa shaxda qayb weyn ka ah waana dhinaca ugu awood badan uguna khatarsan dhinacaasina waa dowladda Itoobiya ciddii aan garanayn ama isdiisiisa xaqiiqdan habeen ayay ku jirtaa waxayna u badan tahay in ay ku dambayso calooliyow iyo hungo saddexda dhinac waxa dhaxyaala qadiyad guud kana mid ah qadiyadaha dunida ugu adag uguna murugsan masiirka qoomiyadda Soomaaliyeed ee xayndaabka Itoobiya la galiyay iyagoon waxba laga weydiin qadiyadan waxa la barbar dhigi karaa qadiyadaha Falastiin iyo Kashmir waa qadiyado lagu riiqmay jiilal badan ku rogmadeen ilaa maantana xal waara loo leeyahay qadiyad walba iyada abuurta shacabkeeda halgamaageeda iyo halyeygeeda iyada dhasha fulaygeeda daba dhilifkeeda iyo waliba dhagar qabaheeda qadiyad walba iyada ababisa damanaheeda duljoogaheeda iyo waliba daawadaheeda qadiyad walba iyada falkisa taariikhdeeda sawirka inoo muuqda iyo shakhsiyaadka iyo waliba siyaasiyiinta in hortaagan waxa dihatay qadiyadda Soomaaliyeed ee dowladda Soomaalida dowladda iyo xukuumadihii kala duwanaa ee Itoobiya waxay qoomiyadda Soomaaliyeed ku maamulayeen hal qaacido oo ku salaysan isir nacayb ku wajahan isirka Soomaaliyeed iyo diin nacayb ku wajahan cid kasta oo islaam ah Soomaalidu waa qoomiyadda kaliya ee kulmisa labada cadow ee Itoobiya ugu daran Soomaali iyo Islaam sida daraaddeed Itoobiya waxay qoomiyadda Soomaalida u maleegtay mar walbana ku fulisa qaacidooyinka isir nacaybka iyo gumaadka tan ugu marid badan madaxdii Itoobiya soo martay Minilik Hayle Salaase Mingista Hayle Maryan iyo Meles Zenawi aad ayay u kala duwanaayeen dhan kasta laakiin isku mid iyo waliba isku mabda ayay ka ahaayeen aragtidooda ku saabsan isirka Soomaaliyeed halgankii dheeraa ee khadhaadha ee soo socda ku dhawaad 6 qarni wuxuu jawaab u ahaa qaacidada maridka badan ee Abyssinia iyo Itoobiya laga soo bilaabo Axmed Gurey halganka wuu soo taxnaa marba koox ayaa calanka u haysay halganka oo hormuud u ahayd ONLF waa ururkii ugu dambeeyay ee quminayay halganka taxanaha ahaa ciddii ku mashquusha marba shakhsiga hogaamiye ONLF waxay wax ka aragtaa jooga raha mana hori doonto qoomamo iyo waliba ishiif Abiy Ahmed markii uu xukunka qabsaday wuxuu la yimid hal abuur iyo siyaasado u muuqday kuwa keeni kara isbedel dhab ah inuu ka dhaco Itoobiya waa cusubna uu u bariyo qoomiyadihii iyo shucuubtii mugdiga iyo faqriga uu ragaadiyay laakiin durba waxa soo baxay calaamado muujinaya inaanu Abiy ka duwaneen madaxdii ka horeysay ee Itoobiya ciddii arki weyda ama iska indhatirta dhagaraha Abiy Ahmed goor dambe ayay wax ogaan doonaan Abiy Ahmed isaga magacaabay Mustafa Maxamed Cumar sidii hogaamiyaashii ka horeeyay ay u magacaabi jireen shakhsigii ay doonaan qadiyadda iyo masiirka qoomiyadda Soomaaliyeed ee soo taxnayd kamid ma ahayn mashruucii Mustafa lagu magacaabay sida daraaddeed Mustafa wuxuu ku jiraa xayndaab ciriiri ah afkaartiisa iyo mabda'a uu aaminsan yahay macna weyn uguma fadhiyaan Abiy Ahmed qaacidadii maridka badnayd ayaa hortaala hadduu fuliyo wuu sii joogi awood iyo adduunna waa uu helayaa haddii uu fulin waayna waa la tuuri sidii caadada ahayd ama waaba la qisaasi sida aniga ii muuqata Mustafa tan hore ayuu doortay wuuna isku gowracay xukuumadda Mustafa Maxamed Cumar waxa ku jira shakhsiyaad waaya arag ah marar badanna isku dayay in ay u nasteexeeyaan danta guudna ilaaliyaan laakiin Mustafa wuxuu madax isugu tuuray xaalad ka liftay inaanu cidna aaminin cidna bixinin Abiy Ahmed ONLF isaga heshiis la soo galay
heshiiska daacad kama ahayn markii horeba ONLFna duruufo aanay u diyaar garoobin culays ay Eritrea saartay iyo dabacsanaan iyo kala daadsanaan dhexdooda ah ayaa tafantaaftay heshiiskii ay la saxiixdeen Ethiopia si yara durduro ah ayaa loo farsameeyay markay dalka yimaadeen hirgelintiisii si hufan uma aanay dabagalin Abiyina dhagartii uu markii horeba la maagana ayuu halkiisii ka sii waday dhaqanka Abiy waxa kamid aha inuu dhagaraha u maleego ONLF uu dusha u saaro Mustafa iyo xukuumaddiisa dabinada uu Mustafa la maagan yahayna uu dusha u saaro ONLF Mustafa iyo ONLFba way u nugul yihiin dhagaraha Abiy marar badanna way ku qatalmeen waxa jira marar badan oo ONLF ay daafacday Mustafa isagoon ogeyn ururnimada iyo qadiyada ayaa mowqifka ONLF saameyn weyn ku leh halka Mustafa uu ka yahay shakhsi sagaal Mustafa iyo ONLF labadaba way soo wajihi kartaa xaalad abuurta dhiilo iyo waliba colaad aanay si ula kac ah u go'aansan uguna bareerin khasaaraha ka yimaadana iyaga lagu eedeeyo laguna qisaaso waatii Cabdi Maxamuud Cumar iyo ONLF qoorta isu gelisay Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu ONLF u bixiyay magacyo ceeb iyo bahdil ah sidii ubbo ONLFna waxay u yaqiineen dabaqoodhi way isku riiqmeen shacabkiina gumaad bahdil iyo mooraduug badan ayaa loola bareeray dalkiina intiisa badan waxaa laga dhigay qubuuro xukuumaddii Ethiopia iyo qaacidadeedii mariidka badnaydna waa la iska ilaaway riwaayadda mid u eg ayaa socota waxayna hadda maraysaa Mustafa oo meel walba la taagan dhaleecaynta ONLF magacyo ceebeedna u raadinaya waxa xiga inta wax garan way og tahay 10 shakhsiyadda Mustafa iyo Maaday labadaba waan aqaanaa inkastoo aan Maaday aad u aqaan Mustafa markii la magacaabay waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee si cad u taageera xushmad weynna waan u hayaa laakiin xaqiiqdu waxay tahay Mustafa waa nin la magacaabay oo aqbalay kuna qasban in uu fuliyo qorshaha Abiy bilihii u horeeyay wuxuu Mustafa isku dayay inaanu ilaawin danta guud iyo masiirka ummadeed laakiin taa waxa aad uga cadhooday xukuumadda Abiy oo gaartay ilaa heer ay ku amarto inuu iscasilo walina hanjabaad ayaa lagu wadaa natiijadu waxay noqotay Mustafa inuu hogaansamo uuna u bato halkii ay mareen madaxdii ka horeysay wax walba waxay isugu bayashumeen xukunka yaanu ku dhaafin wixii kaleete waa la jiifiyaana bannaan Maaday waa shakhsiyad naadir ku ah isirka Soomaalida waxaan bartay markaan dhiganaynay dugsiga hoose waxa uu halganka u horay qiyaas ma laha waa nin daacad ah oo dulqaad badan waxaan aaminsanahay wax kasta oo maslaxad u ah masiirka ummadeed in lagu qancin karo laakiin bani aadam dhan walba ka dhamaystiran ma jiro Maaday si fiican uguma diyaar garoobin xaaladda cusub ee ONLF soo wajahday markay gudaha soo galeen wax badan buu sahladay isagoo oo aaminsan in waqtiga uu xalin doono Maaday iyo hogaamiyaasha kale ONLF way ka gaabiyeen dhismaha tayeynta iyo hawlgelinta ururka si dhab ahna uma xisaabin umana diiwaan gelin dhiigga iyo maalka aan qiyaasta lahayn ee ku baxay halganka ma saadaalin karo siduu Maaday u dhaqmi doono haddii ama markii uu xukunka qabto suuragal ma tahay in la dhax galo khilaafka dhex yaalana la soo afjaro marar badan ayaa laga dooday la iskuna dayay in Mustafa iyo ONLF laga dhax abuuro isfaham guud aniga laftayda ayaa xogogaal u ahaa aadna isugu dayay arrinta in ay guulaysato haddana dadaalo ayaa socda laakiin way adkaatay in guul laga gaaro sababo badan ayaa jira sababta ugu weyn waa kaalinta Ethiopia iyo Abiy oo Mustafa iyo ONLF midba dhan ula heshiiya fartana isugu fiiqa laakiin Abiy wuxuu halista weyn u arkaa ONLF maadaama ay iyadu matasho qadiyad ummadeed iyo taariikh halgan Mustafana wuxuu ONLF u arkaa rag kursiga kula tartamaya suuragalna ay tahay in ay dhaafiyaan sababta labaad waxa weeye iyadoo dadka u kala dabqaadaya aanay xisaabta ku darayn ama ay dhayalsanayaan xoogga saddexaad ee khilaafka qaybta ka ah xukuumadda Abiy sababta saddexaad waxa ay tahay shakhsiyaadka ama kooxaha wax dhexdhexaadinaya oo ah kuwa dana gaar ah leh oo hawsha u arka mashruuc sababta afraad waa madaxweyne Mustafa hogaamiye aanu xarig ka xirmin ama aan hubin sida uu Abiy u arki doono haddii uu ONLF la heshiiyo gunaanad iyo talooyin waxa hadda socda dadaalo uu xiriiriye ka yahay Xuseen Qaasim rag culusna ay ku jiraan aniga waan ka cudur daartay sababtoo ah iima muuqan qaab ama fursad lagu guulaysan karo laakiin waan aaminsanahay in aan la rajo dhigin Allahna waxaan ka bariyay in uu barakeeyo dadaalka socda waxaan qormadan ku soo gunaanadi sheekana dhaxmartay 1994 aniga iyo danjire ambassador Peter Gabriel dadka qaarna ay yaqaanaan Rooble Jibriil
danjire bita aqoon gaara ayaan u leeyahay markuu qarxay dagaalkii ONLF iyo xukuumaddii Mali Zanaawi ayaan wacay danjire bita oo markaa ahaa danjiraha Ethiopia u fadhiya Belgiumka waxaan ku idhi dagaalkan hadda bilowday intuusan fogaan dad iyo dalna aanu galaafan aynu ku dadaalna sidii loo joojin lahaa khilaafkana loo yareyn lahaa waxaan soo jeediyay inuu xagga xukuumadda Addis Ababa fikradda la wadaago anna aan isku dayo sidii loo heli lahaa akhyaar ka howlgasha dhanka ONLF danjiruhu aad buu ii dhageystay wuuna ku mahadsanaa laakiin halkaan ka filayay meel aan ahayn ayuu ila aaday markaan hadalka soo koobo ONLF iyo hoggaankeedii xilliga ayuu aad u dhaleeceeyay fikraddii aan soo jeediyeyna wuxuu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn marka ii caddaatay halka aan kala taagannahay ayaan ku idhi maalin aan maanta ahayn ayaan iska waraysan doonnaa hadduu allaha nagu simo 18 sano kadib ayaan Addis Ababa ku kulannay oo aan sheekaysanay isaga oo wax xil aan haynin wuxuu danjiruhu bilaabay inuu dhaleeceeyo xukuumaddii Mali Zanaawi iyo gabadfalladii ay ku kacday aad baan u dhageystay waxaa igu soo maaxday erayadii aan ku kala tagnay 1994 maalin aan maanta ahayn ayaan iska waraysan doonnaa cid kasta oo awood isbidaysa ama aaminsan in ay kalsooni ka haysato xukuumadda Abiy Ahmed waxay talo ama tamar hayso maanta ayaa loo baahan yahay madaxweyne ku-xigeenka wasiirada iyo saraakiisha kale ee xukuumadda dawladeenka Soomaalida xil weyn ayaa saaran oo ONLFna mas'uuliyad ayaa saaran masiirka ummadeed iyo danta guud ha laga fikiro hana loo gurmado haddii aydan wax badbaadin karin daab ha u noqonina masaarta gumaadka xasuusnaada halkay ku dambeysay xukuumaddii Cabdi Maxamuud Cumar qormadan waxaa qoray Kaynaan Xasan